تياتر كاني وعلى لسه يكون سجال بقول لحظة يو سنتي لحظة يتطبقينا وحلو بالأوروادي وجهري لقى مسرحا تياتر قرنك يقولها مرتدى مدلالة مركا واحد بدن بسوقتي برشة اللي فايدين جري هذي نقول له هيد وعيقرين تلنك وطنيته هذي نقول له هيد لنك شعيرك برشة وما ورده لنكستو سوغانتا ayaa qayb weyn door muhiim ah oo ka qaadan jiray golaha martida madaalada bulshada Soomaaliyeedna qof kasta loo sheego oo dunida dacaladeeda jira golaha martida madaalada aad u yaqaanaa dhalinyaro badan oo dibadda ku maqan xataa ayagoo ooyeen soo wajireen tiyaatarka Masaana u dambeysay tiyaatarka Masaana u noqday bulshada lagu maaweelin jiray marka maanta iyo sidoo ahaa laba barbar dhigi kara ma ahayn meel hilaacayso dhisan oo quruxda adiyaabayso dhismo lamid ah xamar aysan jirin waagi hore ayuu ahaa tiyaatarka maantana waa ka hadda burburkii dalku gaaray ayaa tiyaatarka asagana gaaray kor waa laga diirtay wixii qalabkii gudihiisa yaallay waa la bilaqaystay dad iska burcada oo iska baahan baa bilaqaystay anigu fanka heesaha galaan ku soo galay oo halkan ka qaaday hees garshaga la yiraahdo 1976 ba ahayd kadibna waa bari baa la qaatay oo fanaantu waa bari baan ka tirsanaa siiba waa bari Hargeyso 1980kii قربان نول كلمة درارتي قدر ما حبيني سيدا أرك جودي عشقي جارو حرقي وجيجو أوادا قدومي إنادي جديدة Hargeyso riwaayado badan baan ka soo dhigay oo ay kamid tahay waa maadiisa dunida dadkuna way matalayaan galbeed wala xoreeyay warsan gagacsay dumistay aqalka arooska inankay hawaalada jacaylka aan weerarka aadna bidaarisay way ku gashaa marka riwaayado badan baanu ka dhignay halkan oo Hargeysa ka soo qaadnay waa bari baan ka tirsanaa anigu maanta mas'uuliyiintii waa bari baan ka tirsanahay oo agaasimiye hobrada qaranka waa bari baan ahay marka fanka maamulku ma soo gelinay fan ahaan aan ku soo galay وحتى حي مسعيدة مارين دلال حجاه وحتى حي مسعيدة مارين دلال حجاه ميدابك ترشميسكا عرفتكاس مسرحيته أيام معنا لو موجود جري نال كوكوسن أيام لو قبل جري بس قرع كسبع جري مرة والبابا وجدت هذا الرباء الرواية مثليسو يا درب لو صوروها ده واحد السفين كان ما هين شينيس بالسي قرع ذواتيا بس سيد هيد بلع ذواتيا بس رواية الغوليو dadka markay dibadda nuwar kan maalintii waxay dhigeen xalay sida ahaydeen iimaan sida tiin ismala maxaa dhacay waxaan ilaahay ka baryayaa in macnaha sidiis hore ilaahay uu ku soo celiyo oo bulshada hawsha uu qaban jiray oo hanuuninta dadweynaha ah inuu macnaha hawshiisii ku soo laabto ayaan rajaynayaa insha Allah tiyaatarka waxaan ku bilownaa dhismo qalabkan hadda waa qalabkii xafiisyada
oo haddii alla koro ilaa hadda qaybihii xafiisyada qaybo ka mid ah ayaan dayac tirnay kana ka mid ah haddii alla koron yahay waa badan yihiin qaybaha la dayac tiray kan xafiiskan ayaa ka mid ah qaybaha aan dayac tirnay waad u jeedaa waa dhammaystiran yahay wax ka maqan ma leh waad aragteen maanta waa qaawan yahay tiyaatarkii qofkii dhex istaaga cirka wax ka xiga ma leh waxaad u malaysaa neef maqaarkii laga siibay waxaan rabnaa in la dayac tiro dhismihiisa hadda qaybihi xafiisyada waa ku bilownay qaybaha dambena waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu dhismi doono oo bilicdii iyo quruxdii ummadda soomaaliyeed ku oqoon jirtay oo uu yeesho madaxda qaranku waxay ballan qaadeen in tiyaatarka dayactirkiisa la bilaabayo annagu soomaaliduna ay isku tashato marka koowaad kadibna adduunka ciddiina caawinaysa ma diidayno baarkii tiyaatarku lahay waa kuwana qolalkiisii iyo qaybihii uu ka koobnay ayagana waa dayac tiran yihiin waa kana baarkii tiyaatarka haddii alla kuro mujtamaca magaalada muqdisho ku nool ay isugu imaan jireen marka asagana insha allahu waxaan rajaynaynaa mar dhow inuu howlgalo sababtoo qolalkiisii waan diyaarinay hase yeeshee asaga waxaa ka dhiman weli waxba lagama qaban laakiin burburkiisu waa yaryahay oo waxa gaara waa yaryihiin riwaayadda ugu horraysa ee aan ku dhigi doonno waxaa la yidhaa magaceeda adaa fiiqdee kor ha fiirin ayaan ku dhigi doonnaa marka ugu horraysa riwaayadda labaad waxaan rajaynaynaa asagoo quruxdiisii iyo muuqaalkii looga bartay leh inay soo galaan bulshada soomaaliyeed marka golaha murtida iyo wacyigelinta xaaladdiisu maanta waa sidaad aragtiin hase yeeshee waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan mabsuud qalbigaygu midoo ku yahay